Hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka ee kala ah Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka, Guddiga Madaxa Bannaan ee Dastuurka, Guddiga La Socodka Dastuurka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay kulan wacyigelin dadweyne kaasi oo looga gol lahaa in bulshada ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir sidii loogu dhoweyn lahaa dhammaystirka dastuurka, qaybna ay uga qaadan lahaayeen doodaha ku aadan arrimaha dastuurka. Ugu horreyn kulanka waxaa ka hadlay guddoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, kaasi oo sheegay in ay ka maamul ahaan ay ku faraxsan yihiin in ay qayb ka noqdaan dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka. mudane wasiir waxaan ku faraxsanahay inaan kugu soo dhaweyno adiga iyo bahdaada wasaaradda cadaaladda, degmadii Kaxda, degmadii aqoonta, degmadii nabadda, degmadii isdhexgalka bulshada, degmadii dalxiiska. soo dhawo mudane wasiir. in badan ayaan filaynay in uu wasiirka iyo tiimkuba ayna soo booqan doonaan, laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay inaad nala joogtaan. dadweynaha Kaxda waxaa sharaf u ah in maanta in badan ayaan waxaan ka maqalnay meediyaha marka dastuurka laga hadlayo. tiimkii saaka noo yimid baan kaftamaynay, agaasimaha guud ka mid ahaa. waxa uun loo yaqaanaa meel ku eg baarlamaanka iyo odayaal hore iyo ayaa waxaa loo yaqaanaa dastuurba haddii laga sheekeynayo. laakiin maanta waxaa sharaf noo ah wasaaraddii cadaaladda oo guuraysa inay noogu imaadaan dastuurkii dalka uu lahaa dhammaystirkiisii iyo fahankiisii iyo dowrkii bulshada ay ku lahaayeen in naloo keeno. oo maanta bulshadii Kaxda runtii intii naloo keeno warkaalay aragtidiina ku darsada. war maxay idinla tahay? social engagement-ga waa waxa ugu muhiimsan marka shaqo la qabanayo. marka maanta degmada Kaxda waxaa mudane wasiir adiga tiimkaada diyaar kugu ah degmadii Kaxda oo dhaqankii uu hogaaminayo maanta meesha ay fadhiyaan, bal in aan dhageysano tiimkii wasaaradda cadaaladda. Qaar ka tirsan dadka degan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa kulanka wacyigelinta ah ee dastuurka ku biiriyay fikradahooda iyo aragtiyadooda ay ka qabeen si loogu biiriyo aruurinta fikradaha. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka, Xukuumadda Federaalk Soomaaliya oo kulankaasi furay ayaa sheegay in furitaanka kalfadhiga baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya ay qayb ka tahay sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka Soomaaliya si loo helo dastuur bulsho ay heshiis ku yihiin. maanta sida la sheegayba degmada Kaxda aad iyo aad ayay farxad noogu tahay, sharaf noogu tahay inaan wixii ugu qiimaha badnaa dowladnimadeenna oo ah dastuurkeennii inaan idiin keenno oo aad ra'yigiinna iyo aragtidiinna aad ku darsataan. annagana sharaf bay noo tahay, farxad ayay runtii noo tahay. dastuur isaga sheekayn mayno muhiimadda uu leeyahay, laakiin waxaan rabaa inaan ka hormariyo dhowr arrimood oo ku saabsan degmada Kaxda. intii la sheegay ayaan ku waafaqsanahay. degmadan degmadii waxbarashada waaye, degmadii culummada waaye, degmadii nabadda waaye. degmadan degmooyinkii ugu dambeeyey oo ugu dhalinta yaraa waaye degmooyinka. runtii annagana maanta sharaf ayay noo tahay. sharaftuna waxa waaye dadka ka soo jeeda degmadan ayaan runtii qiimo gooni ah noogu fadhiya. marka waa dad aan aaminsannahay, dadweynaha degmadan degan dad aan aaminsannahay inay nala qaadi karaan, wax ka qaadi karaan, ka xambaari karaan risaaladan dastuurka ah ee aan wadno, nala xambaari karo, nala qaadi karaa. Hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka ayaa mar walba waxay muhiimad gaar ah ay siinayaan in bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir sidii ay u gaarsiin lahaayeen dib u eegista dastuurka maadaama dastuurku yahay heshiis bulsho. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku
hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah